boqolaal qof oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Mombasa ee Soomaalida ayaa waxay ka soo qayb galeen kulan diimeed la xiriira wacyigelinta dhalinyarada oo ay jeedinayeen laba sheekh oo baraha bulshada caanka degan wadanka Holland ahna walaalo oo lagu kala magacaabo Sheekh Abubakar Maxamed iyo Sheekh Cumar Maxamed oo inta badan ka hadla wacyigelinta iyo ku boorinta dhalinyarada dhinaca horumarka iyo diinta. warbaahintooda oo dhan waxay geliyeen islaamka ilaa dad badan oo muslimiin ay soo jiiteen oo annaga halkan fadhino aan ka mid nahay. runtii waan ku amaanayaa ilaahay waxaan leeyahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo oo idinkoo kale ummadda dhexdeeda ha ku badiyo oo sacyigiinna iyo dadaalkiinna ummadda ha u barakeeyo. waxaadna mudan tihiin dab ahaan in laydinku daydo oo khayrka la idinkaga daydo oo ummadda qudwa saalixa u noqotaan. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen urur dhalinyaro lagu magacaabo jiilka mustaqbalka ayaa waxa ay sheegeen soo qaban qaabiyaasha barnaamijkan inuu yahay mid ay ugu talagaleen dhalinyarada xilligan fasaxa inay uga faa'iideystaan wacyigelintooda. bulshada waxaad tihiin qayb ka mid ah, bal waxaad tihiin nolosha oo dhan. noloshaasi dadka tarbiyeyn lahaa oo fikradaha gudbin lahaa, dacwada diinta faafin lahaa, dhaqanka wanaagsan gabdhaha fahamsiin lahaa waa adinka. mas-uuliyaddaasi qaata ee ha sugina oo keliya wiilasha karti iyo wanaag iyo awood iyo mas-uuliyad ayaa saaran. idinkana mas-uuliyad iyo karti iyo awood ayaa idinku jira, wanaag ayaa idinku jira. wanaagiina muujiya, wanaagiina wax ku tara. Sheekh Abubakar iyo Sheekh Cumar oo inta badan baraha bulshada ka wacyigeliyay dhalinyarada ayaa waxa ay magaalada Mombasa ay kaga dhawaaqeen olole ay sheegeen inay ku aruurin doonaan lacag gaaraysa $100,000 oo dollarka Mareykanka, isla markaana ay ku gaari doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanada Soomaalida ku nool. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان سأوجدان ما شاء الله تعالى سود وهذا الله سبحانه وتعالى إن حفظيه. أنيجا إذا ما أصحابته وحان جو أنسناي بقول كيف بقول إن أن عاونه ولا له هنا صوماليات هيستا أبار هيستا بيلان جريو هذا كقحيسي أي نول أي أوراد سدان بالبركة سنة أي سود وذا هي النبي صلى الله عليه وسلم نوحوت المسلمين إن يهين هل جر أو كلا قيب كم دادو حنون صدو قيب تكلن وحنون سنة يو ضمان وان جو أنسناي ضمان ديار وانا صومالنا عاونه ديار منا هنا عاوني ولا علينا صوماليات ما شاء الله تعالى ولا علينا صوماليات هايستا أبار أنا أوجوجن إن شاء الله تعالى وعابد دونا. inta uu socday barnaamijkan ayaa halkani sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay 3 buug oo ay qoreen Sheekh Abubakar iyo Sheekh Cumar, isla markaana inta badan dadka halkan ka soo qayb galay oo qof kasta uu qaatay koobigiisa, iyadoona nin ka mid ah ganacsatada magaalada Mombasa uu bixiyay qarashaadka buugaagtaas isagoo sheegay inuu doonayo in dhammaan dhalinyarada ka soo qayb gashay barnaamijkan ay ka faa'iideystaan. waxaan hadda ku sugannahay waa hoolka ay muxaadarada ay ka dhigayeen Sheekh Abubakar iyo Sheekh Cumar, iyadoona halkan ay ku saxiixayaan buugaagtii iyo weliba sidoo kale kutubtii ay qoreen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ha ka siiye. ما شاء الله فرحت kulankani oo ka dhacay mid ka mid ah hoolalka ku yaala magaalada Mombasa ayay labadani sheekh ee walaalaha ah ee lagu kala magacaabo Sheekh Cumar Maxamed iyo Sheekh Abubakar Maxamed waxa ay halkani uga jeediyeen muxaadarooyin qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Mombasa oo kumanaan qof kor u dhaafisay. Maxamed Cabdi Bowtaan, warbaahinta Star, magaalada xeebeedda Mombasa.